bulshaduna wixii awoodda ay ku darsato xanaanada waayo dee waa ka mid bulshadu marka intaasna waa intaa calna wax kula dardaarmaya in hawshaas hawl culus tahay waa nin dhalinyaro ah kulli hawsha uu ka soo baxaya inuu hawsha dulqaad u yeesho inuu sabir u yeesho inuu dadkii dhex galo oo bulshadu noqdo wixii xanuuna iyo wixii jina kulli waan ku korsan si degdeg ugu soo gudbinaya anuna waan la shaqeynaa mar labaadka waxaanu mahadnaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeeyo wasiirka xanaanada xoolaha mudane wasiir Siciid Sulub Maxamed waxa kale inuu mahadnaqaynaa waaxda caafimaadka ugu horeeyo Cabdiqani Xamed Cawaale agaasimo waaxda ku xigeenka waaxda caafimaadka oo inala jooga in badan meesha dawooyin badan iyo hawlgal badan nagala shaqeeyay hadda gaarka oo ballaaran oo si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa isduwaha gobolka Togdheer isduwayga Dr. Sayid Cali Rashiid oo intii uu xilka hayay degmooyinka iyo tuulooyinka saacad u taagnaa oo baahiyoodkooda iyo waxa looga baahan yahay haday dawlad tahay iyo haday xafiis la furayo tahayba hiliyo hoobe la garab taagan oo hadiya habeenba shaqeynaya masaaka waxaanu la wareegnay dawadii waaxda caafimaadku noogu soo tala gashay xoogaa dawaa ma sha Allah oo ku shaqeyn doonaa anaguna ka maamul ahaan hawshan nala soo igmaday xilkaan la saaray waxaan uga soo bixi doonaa sidii loogu tala galay insha Allah biidmillaah kariim waana noo shaqeyn doonaa degmada horena waan ugu shaqeynaynay farxad weyn bay noo tahay saaka oo markii saddexaad ee maaragtay wasaaradda xanaanada cid ka timaada lana daafuray dawooyinkii iyo qalabkiina loo soo dhameystiray baahi weyn ay u qabtay degmada Duruqsi inay maaragtay la furo xanaanada xoolaha marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii aadna waan soo dhaweynaa maanta wafdidan xanaanada xoolaha ka socotay noo timi dhowr goor isku xigtana noo timi xanaanadina saaka naloo dhameystiray oo qalabkeedii iyo daawooyinkii wixii baan naloo dhameystiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed iyo isduwa gobolka Togdheer intaba iyo agaasimayaasha dhamaantood waan uga mahad celinayaa halkan runtii waxaan daafureynaa xaruntii degmada Duruqsi xanaanada xoolaha ee ka shaqeynaysa caafimaadinta xoolaha marka anu laba kalmadood baan oranayaa waxa weeyaan muxuu hayday horta waxaad naga gudoontaan hawsha dawada aan maanta idin keenay caafimaad ahaan talabaadna waxaan doonaynaa muxuu hayday inaan dhameystirno hawsha aan bilownay oo aan geedkii imka ku xigsiino geedka mari doona muxuu hayday dhammaan wariga gaadhanay muxuu hayday xaruntu leedahay kaana waanu ka shaqeynaynaa imka markaan noqonaa waanu ka shaqeynaynaa halka xoolaha laga rareeyana waan ballaarin doonaa isagana mid kale aan ku dari doonaa labada meelood baan idinka ballan qaadinaa inaan muxuu hayday dhameystirno maamulahana waxaan dadka halkan iga daawanay bulshada reer Duruqsi uga sheegay inay muxuu hayday la shaqeeyaan maamulaha cusub ee Ilaahay u keenay iyo dawada una mahadnaqaan wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Sulub si uu isaguna muxuu hayday u dhameystiro baahiyaha ka dhameystiran waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed oo soo gaarsiiyay qaybtii degmada Duruqsi waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa heer gobol ayaan aad ugu mahad celinayaa isduwaha cusub Sayid Cali Rashiid oo aad iyo aad noola shaqeeyay muddo 3 goor halkan ku yimi socdaal aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa wanin deegaankan isaguna u dhashay wanin aad u firfircoon wanin aad u dardargeliyay meeshana waa xad waa meesha xooluhu ka kala gudbaan aad iyo aad ayaan baahi ugu qabnay intii anigu waxaan oday ka mid odayaasha degmada Duruqsi waa markii horeysay dhowr iyo 30 sano Soomaaliland ay jirtay aan arkay xarunta degmada Duruqsi oo dahay laga rogay oo la qalabeeyay oo talaagadii la dhigo dawadii la dhigay oo shaqaali joogo waa markii horeysay aan arkay aad iyo aad baan ugu ayaan u salaaminaa u soo dhaweynaa waftida soo wareegay ee dhul badan soo maray ee noo yimi ee wixii aan u baahnayn noo keenay ee ahayd dawadii xanaanada xoolaha oo deegaanku aad iyo aad ugu baahan yahay aad iyo aad baan idin salaaminaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxaan kaloo mahad celinayaa wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed wasiirka xigeenka aad iyo aad baan ugu mahad celinaa iyo cid allayaale cidii ka qayb gashay hawshaas waxa mahadle ilaahay baa mahad u sugnaatay waxa mahad iyadana u mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Siciid Sulub
maxamed ayaan oo muxuu ahaa qorshahan iyo aad muxuu ahaa taabagelintan iyo dardargelintan muxuu xanaanada qaybka ahaa qaybta koowaad lafdhabarta kowka ahaa isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee cusub isagana oo mahad celinayna cali Cusmaan Maxamuud waa la shaqeynaa hadii ilaahay ka dhigo hadaan deegaanaanahay run ahaantii sida maanta in yar oo wax yaraan 2 bilood gudaheed hay buu isuduwuhu joogay wax badan buu ka muujiyay